Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta saldhigga degmada Dharkiinley ku soo bandhigay 6 nin oo burcad ah kuwaasi oo sida la sheegay dadka rayidka ah dhac u geysan jiray. Raggan oo markii la soo qabanayay ku hubeysnaa qoryaha AK47 ayaa wararka waxa ay sheegayaan in bulshada ku hayeen dhib fara badan, kuwaasi oo loo gudbiyay maxkamadda ciidanka si loogu qaado dambiyadii loo haystay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo goobta lagu soo bandhigayay burcadan ku sugnaa ayaa sheegay in ay ka maamul ahaan wadaan olole ballaaran oo looga hortagaya dadka burcadda ah ee falalka amni darro ka wada degmooyinka gobolka Banaadir. in muddo waxaan wadnaa anaga magaaladan caasimadan amnigeeda iyo nabadeynteeda. Shacabka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay amni iyo nabad. annaga halka cadow oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa kooxaha argixisada Al-Shabaab. laakiin haddii dhexdeennii dad Soomaaliyeed oo inta qoryo qaatay iyo bistoolado muwaadiniin Soomaaliyeed dhib u geysanaya ku talagalay inay jir dilaan ama ay boobaan ama hantidooda iyo maalkooda u soo jeestaan, waa nasiib dartii ugu weyneed. annaga waxaan bilownay olole aad u ballaaran oo ah in laga hortago dadka maleeshiyaadka ah ee burcadda ah ee xaafadaha iyo shacabku ay ka nasan laayihiin. magaaladan Muqdisho caasimad ma noqon karto, lama tartami karto caasimadaha adduunka haddii ay nagu dhex jiraan dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin Soomaaliyeed fal u geysanaya. hadda maanta hortiina waa ka muuqataa hubkii lagu soo qabtay 4 ka mid ahna deegaanka Garas Baale waa dadkii muddo la raadinayay, booliiskana ay soo gudbiyeen. annagana shirkeena amniga habeen walba uga hadalno. waxaan nasiib wanaaga shacabkan u sheegaynaa in maanta gacan lagu soo dhigay, weliba iyagoo isku dayay inay gabar farxumo u geystaan. waa dhaqanka Islaamka, dhaqanka Soomaalidu aad bay uga soo horjeedaa. annaga waxaan rabnaa in gacan bir ah lagu qabto dadka noocaas ah burcadda ah ee soo jeesta. sidoo kale degmadan Dharkiinley muddaan ka hadalnay, waxaan haynaa 17 qof magacyadoodana loo soo gudbiyey oo lagu eedeynaa inay burcad yihiin. maanta 2 ayaa gacanta ku jirta, kuwa kalena waa u digaynaa, waana u soo soconnaa. qofkii muwaadin Soomaaliyeed dhib u geysta wuxuu u geystay Soomaaliya oo dhan. caasimadan ma sii joogi karo qof isku dayaya inuu burcadnimo iyo 2019 isku dayo magaaladan. waa dhammaatay waqtigii fowdada, waqtigii mooryaannimada, waqtigii maleeshiyaadka. waxaa la joogaa waqtigii muwaadin walbow waddankaaga maxaad u taraysaa, caasimadaada maxaad u taraysaa, noqo muwaadin. inta qoryaha haysata iyo bistoolooyinkana waxaan leenahay haddaba iska tuura oo ummaddiina ka mid noqda, waxbarta, waddankiina u adeega. sidoo kale waxaan rabaa inaan digniin adag u diro odayaasha iyo dadka ka soo daba cararaya dadka oo noocan oo kale ah ee raba inay soo daayaan. annaga waxaan caddaynaynaa cid allaale ciddii lagu soo eedeeya falalka noocan oo kale ah inuu mutaysan doono ciqaabta ugu adag. maxkamadaha iyo garsoorkana inaan la soo faragelin karin. cid allaale ciddii soo farageshana aniga ha liisoo sheego. odaygii ka daba yimaadana waxaan u sheegaynaa inuu isagana xiran yahay, kama daba imaan karo qof burcada. marka hore lagaa rabaa wiilashiina inay cashataan, uga digtaan, una sheegtaan. nidaam waxaan ahayn iyo dowladnimo nama deeqo. Maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa dhawaanahan magaalada Muqdisho ku qabanayay kulamo looga hadlaya amniga caasimadda, kuwaasi oo ay qayb ka ahaayeen sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga caasimadda iyo ka hortagga falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca magaalada. Ismaaciil Aadan Bariise, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.